Conversation 6 our lessons about today. Conversation 6 casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay conversation 6 waa wada sheekaysiga lixaad. Conversation 6 waa wada sheekaysiga lixaad. A iyo B baa wada hadlaya. What do you like? maxaad jeceshahay buu yiri to be inaad noqoto in the future mustaqbalka. maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka. I like waxaan jecelahay buu yiri to be aan dhagtan inaan dhaqtaan noqdo. Why buu yiri sabab. Why marka waa sabab. wuxuu B baa jawaabaya it's a good profession waa shaqo fiican ama xirfad fiican. I shall treat waxaan daweyn doonaa the sick people dadka xanuunsanaya especially khaas ahaan the poor ones kuwa faqiirka ah. especially khaas ahaan ama gaar ahaan the poor ones kuwa faqiirka ah. and you adigana I like waxaan jecelahay to be an engineer inaan engineer noqdo. I like waxaan jecelahay to be an engineer inaan engineer noqdo. I shall build waxaan dhisi doonaa the houses guryaha bridgeda roads wadooyinka. I shall build waxaan dhisi doonaa the houses guryaha bridgeda roads wadooyinka. A baa hadlay everybody ruux kasta has his own ambitions wuxuu leeyahay qorshayaashiisa mustaqbal ee isaga u khaaska and dreams iyo riyooyinkiisa. Everybody waa ruux kasta has his wuxuu haystaa his own professions his own future ambitions. qorsh ambition markaa waa hamiyadiisa mustaqbal ee isaga u khaaska and dreams iyo riyooyinkiisa. B baa hadlaya do hope waxaan rajeynayaa a very bright future mustaqbal abeefaya. A baa hadlaya A baa hadlaya goodbye nabadgelyo. goodbye nabadgelyo. B baa hadlaya bye bye nabadgelyo. What do you like buu A da hadlaya what do you like maxaad jeceshahay to be a future inaad mustaqbalka noqoto. I like waxaan jecelahay to be a doctor inaan dhaqtar noqdo buu yiri. Why sabab it's a good profession waa mihnad fiican ama shaqo fiican. Actually treat waxaan daweyn doonaa the sick people dadka xanuunsanaya especially khaas ahaan marka dadku daweyn u sheegaya khaas ahaan ama gaar ahaan the poor ones kuwa faqiirka ah. and you adigana I like waxaan jecelahay to be an engineer inaan engineer noqdo. I shall build waxaan dhisi doonaa the houses guryaha bridgeda roads wadooyinka. A baa hadlay everybody ruux kasta has his own future ambitions wuxuu leeyahay qorshayaashiisa mustaqbal ee isaga u khaaska and dreams iyo riyooyinkiisa. B baa hadlay I do hope waxaan rajeynayaa a very bright future mustaqbal aad u ifaya. goodbye buu nabadgelyo bye bye nabadgelyo.